habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa kaga imaanaysa washington. waa habeen jimcaha 3 bisha Julaay sanadkuna waa 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirban iyo boggan VOA Somali.com iyo efemada magaalooyinka Geeska Afrika qaar. Idaacadan caawa waxaa idin soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Ibrahim Xasan Danduri. qodobada idaacadda ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aynu kusoo gunaanudayno barnaamijyo taxano ah oo maalmahan uga hadlaynay xurriyadda Soomaaliya iyo taariikhaha la xidhiidha. hadal kooban waxaan oran lahaa waxaan ku qiimeyn lahaa inay halaag iyo masiibo burburo dhaceen. walaaladii reer koonfur waxaan oran lahaa ninkii shalay hog maska qaniinay howlgaraan ku soo noqon maayee hal la fikiro waxaynu doonayno mustaqbalka haddaynu u gogol dhigi karaynaa. qolana inay ku celceliso waana la rusheeyada Soomaalida kaleba ka liidatana maaha. qolana inay diyaaradda dafirto oo tii diyaaradba halkaa u taalo cugdad bay qabaan maaha. waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan Allah u naxariistee geerida fanaankii Maxamed Maxamuud Cege Buzi oo maanta lagu aasay magaalada Hargeysa. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyo cabdixakiim maxamuud shirwac. ra-iisul wasaarihii dalka Faransiiska Edouard Philippe iyo xukuumaddiisii ayaa jimcahan maanta iscasilay xilli madaxweynaha dalkaasi Emmanuel Macron uu damacsan yahay inuu maamulkiisa dib u habeeyo si uu dib ugu hanto codbixiyayaasha oo ka niyad jabsan suurtagalnimada dib u doorashadiisa sanadka 2022. Macron ayaa la tacaalaya inuu dib u qaabeeyo xukuumaddiisa xilli dalkaasi Faransiisku uu ku jiro dhaqaale xumadii ugu weyneyd tan iyo dagaalkii labaad ee dunida iyadoo uu jiro hoos u dhac dhaqaale oo gaaraya 11% sanadkan 2020. maalgashadayaasha ayaa dhowraya amaba isha ku haya wasiirka maaliyadda ee dalkaasi Faransiiska Bruno Le Maire oo isagu ku fogaanay inuu furfuro dhaqaalaha Faransiiska isla markaana uu kharash geliyo si shirkadaha Air France iyo Renault ay hawlahooda u sii wataan xilligan adag ee lagu jiro. xafiiska madaxweyne Macron ayaa sheegay in qofkii bedeli lahaa ra'iisul wasaaraha iscasilay lagu soo magacaabi doono saacada gudahood iyadoo ila ku dhadhow madaxweyne Macron ay sheegayaan in aanu dib u soo magacaabi doonin ra'iisul wasaaraha haatan iscasilay sida xilliyada qaar ka dhacda dalkan Faransiiska marka la sameeyo isku shaandhaynta. ra-iisul wasaaraha dalka India Narendra Modi ayaa sheegay in waqtigii gumaysigu soo idlaaday xilli uu booqasho lama filaan ku tagay gobolka Ladakh ee buuraleyda Himalaya halkaas oo lagu daadagureeyay kumanaan askari oo ka tirsan ciidamada dalkaasi xilli ay xiisad u dhaxayso India iyo Shiinaha. safarkan ra-iisul wasaare Modi ayaa kaliya la shaaciyay kadib markii uu halkaasi gaadhay iyadoo socdaalkiisana loo arkayay inuu ahaa fariin ku socota dalka Shiinaha iyo weliba inuu niyadda u dhisay kumanaanka askari ee xuduudda labada dhinac ku marsan yihiin ku hor fadhiya ciidamada Shiinaha. waxaana booqashadiisani imanaysaa 2 toddobaad kadib markii 20 askari oo reer India ay ku dhinteen kaasi oo ahaa isku dhicii ugu xumaa ee muddo 10 sano dhex mara labadan dal ee haysta hubka nukliyeerka. warbaahinta dowladda Turkiga ayaa ku waramaysa in qarax uu ka dhacay warshada soo saarta rashta oo ku taala waqooyi galbeed dalkaasi. wakaalada wararka Associated Press ayaa iyaduna ku warantay in 150 ilaa 200 qof ay dhismahaasi ku sugnaayeen xilliga uu qaraxu jimcahan maanta dhacayay. ilaa iyo hadda ma jirto wax faahfaahin oo ku saabsan inay cid wax ku noqotay warshadan ku taala gobolka Sakarya. muuqaal uu baahiyay telefishin ayaa isaguna muujinaya uura ama qiiqa ka dulbaxaya goobta uu qaraxu ka dhacay. ugu dambeyntiina dalka Botswana ayaa baaraya tiro maroodiyaal ah oo sabab aan la garanayn u dhintay kuwaasoo ilaa iyo hadda la xaqiijiyay inay muddo 2 toddobaad ku dhinteen 275 maroodi sida ay maalintii Khamiistii sheegtay dowladda Botswana. dhimashada maroodiyaashan ayaa markii ugu horeysay bilo ka hor lagu arkay gobolka Okwango Benhandel iyadoo mas'uuliyiintuna ay sheegeen in ilaa iyo xilligaasi raadinayeen waxa sababay dhimashadooda. wasaaradda deegaanka khayraadka dabiiciga iyo dalxiiska ee dalkaasi ayaa sheegtay in 3 shaybaar oo ku kala yaala dalalka Zimbabwe, Koonfur Afrika iyo Canada la isla gartay in lagu baaro shaybaar laga soo qaaday maroodiyaashan dhintay. dhinaca kalena warbixin uu diyaariyay urur la yiraahdo Elephants Without Borders
oo nuqul ka mid ah wakaaladda wararka ee Reuters ay aragtay ayaa lagu sheegay in muuqaal kor laga soo qaaday uu muujinayo inay dhimanayaan maroodiyaashu iyagoo da' kastaba leh iyagoo intaasina sii raaciyeen ay bishii May 25-keedii soo tiriyeen ilaa 169 maroodi oo dhintay iyadoo bishii Juun 14-keediina ay soo arkeen 187 kaloo dhintay sida warbixinta lagu sheegay. dhegaystayaal warkiina waa naga intaas. waxaa maanta aas qaran loogu sameeyey magaalada Hargeysa Allah u naxariistay marxuum Maxamed Maxamuud Cige Busi oo ka mid ahaa howladii Waaberi haatan ahaa ku-xigeenka agaasimaha dhaqanka ee wasaaradda warfaafinta Somaliland kaasi oo xalay ku geeriyooday Hargeysa. waxaa warka nooga soo diray Hargeysa wariyaheena Khadar Maxamed Cakule. abwaan maxamed aadan dacar ayaa ka hadlay aqoontii uu lahaa Allah u naxariistay Maxamed Maxamuud Cige oo aas qaran maanta loogu sameeyey magaalada Hargeysa. abwaan dacar ayaa ku tilmaamay marxuumku inuu ahaa dhalinyaradii sida weyn kaalinta wax ku oolka uga qaatay horumarinta iyo xilgudashada horumarinta fanka Soomaalida. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. khadarow waxa geeridu waa xaq qof kastaba uu dhimanayaa. ilaahay samir iyo iimaan dhammaanteen baa inaga siiyo iyo ehelkiisa iyo ubadkiisiiba naxariista jannana ilaahay ha ka waraabiyo. intaa markaynu ducada aynu dhaafno xaggan xog waranka ka waran Maxamed Maxamuud Cige Busi anigu markii dambe tiyaatarka la dhisay tiyaatarkiisna aanu ka dhaqanayna la bedelay ayuu isagu qoladii timiyey naga dambeysay buu ahaa ee la qoray dhalinyaradii dambe tiyaatarka iyo dhismihiisa ka dambeysay ee la qoray buu shaqaalaha waxaanu ahaa inan ku wanaagsan shaqada loo diro aad iyo aad marka hore qoraalkaasoo markii dambe dareen walbaabuu noqday wax walba wuu qaban jiray wuxuu ku wanaagsanaa waxa alla wuxuu mar laba goor sidaa u eego wuu samaynayey marka waxa uu ahaa inan bulshaya oo dee badankiisa leeyahay farxaana oo heesiya oo wax matelaya oo ciyaaraya intaba ku wanaagsan ayuu ahaa. imakana dee waxaabuu noqday malaa inuu awowhaabaaban u malaynayaa uu meesha ku soo gaadhay. markaa ilaahay naxariistii janno ha ka waraabiyo. dhallinyaradii dambe naga dambeysay ilkaha ka sii hadhay ee hawsha loo diro ka soo baxayey ee ku wanaagsanaa ayuu ka mid ahaa ee kaba sii hadhay. geesta kale fanaanada weyne hiba maxamed hiba nuura oo VOD ay wax ka weydiisay aqoontii ay u lahayd Allah u naxariistay marxuum Maxamed Maxamuud Cige ayaa ku tilmaantay inuu ahaa Maxamed Maxamuud Cige Busi shakhsi aad u wanaagsan. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. khadar waa sidaad u sheegtay Maxamed Maxamuud Cige anagu waxaan soo wada shaqaynayna muddo dheer. qofkan aad iyo aad iyo aad u aqaanay buu ahaa aadna ugu kalsoonaa aadna igu kalsoonaa laakiin adduunyada qof joogaya ma jiro. horaa loo yidhi haddii mawdku cibseedi sayidkeeni maxamed baan ka socdeene saakadan ruux ladnaaba saxasho sabab looga dhiga. marka maalintiisii bay noqotay nin bashaasho buu ahaa sidaad ii weydiisa khadarow. aqoontaan u lahayna mid durugsan oo aan isku koox ahayn wada shaqaynay dad aada isu jecelo walaalo oo isku kalsoonna waan hayn. hase yeeshee maanta adduunyada wuu ka tegey aakhiruu tegey inaguna waan ka daba tegaynaa. waxaan leeyahay ilaahay jannatal firdows aclaa geeyo. waxaan uga tacsiideynayaa xaaskiisii caruurtiisii eeladiisii iyo dhammaan hoobalada Waaberi adduunyadoo dhan bay ku firdhisan yihiin meel kastoo joogaan. waxaa kaloon ka tacsiideynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed. waxaa kaloon si gaara uga tacsiinayaa ummadda Somaliland isagana jannatul firdows alayaan ilaahay uga baryayaa naf waliba way dhiman. khadaro aad baad u mahadsantay weydiintaadii weydiisay sidaasaan u yaqiinay sidaasoo adduunyada uga socda aniguna aan uga dabategi adiguna aad uga dabategi qof walbana uga dabategi. ilaahay jannada ha geeyo allah inaga samirsiiyo isagana marti la jecel yahay allah ka dhigo. agaasimaha waaxda dhaqanka ee wasaaradda warfaafinta Somaliland Cabdi Maxamed Jaamac Cabdiyare oo ay mar ilaa yaraantoodina dugsiyadii waxbarasho soo wada qaateen ilaa haatan ay saaxiib walaala ahaayeen ayaa si qoto dheer uga hadlay taariikhda Allah u naxariistay Maxamed Maxamuud Cige. wuxuu isagu dhashay 23 Juun 1960 waxaanu ku dhashay xaafadda Sheekh Madar magaalada Hargeysa. dugsiga hoose saan idin sheegay
magaalada bulxaar ilaa baan ka galay oo markaa uu maamulo ka ahaa waxaan ku dhaha weji agaasimaha TV-ga qaranka dugsigiisii hoose 2 meelood buu ku kala qaatay bulxaar oo 2 fasal ku qaatay iyo iskuulka Riis oo 2 fasal ku qaatay ee Hargeysa Axmed Gurey baan hadana loo wareejiyay dugsigiisa Axmed Gurey baan kooda dhiganay haddana isagoo Faarax Omar ayuu galay secondary aniguna tababarka macallimiintan galay muu dhamaysan Faarax Omar saasuu kaga tegay urka tegayna wuxuu ku biiray gobolada waa beri 1976 intii ka dambeysay oo dhan waa beri buu ahaa cabdiyare ayaa ku sifeeyey maxamed maxamuud cige busi inuu ahaa qof hibe u leh maskaxdiisuna ay aad u fiicnayd shayga uu mar arkana aan mar labaad ku noqon jirin isagoo hawl kasta oo u jeestay inuu qabtana ilaa uu guul ka gaadho aan ka hadhi jirin wuxuu ahaa abwaan wuxuu ahaa heesaa wuxuu ahaa muusikiist wuxuu ahaa jiraa nooc kasta oo fanka ciyaartooy buu ahaa fanka nooc kasta uu ka mid ahaa wuxuu ahaa A-class buu ahaa dadka aad ugu fiican buu ahaa meel walba dhinac kasta ugu dambeyntii imika wuxuu hayay xil wuxuu agaasime ku-xigeenka waaxda dhaqanka ee wasaaradda warfaafinta ahaa imika waqtigan ugu dambeeyey waan gartay marxuumka xagga qoyska muxuu ahaayey dee imika awowbaa buu ahaa carruurtiisu awowbuu ahaa imika carruurtiisu waxa weyn 3 bahood ayaa nool 3 bahooda nool baahi waa 3 baahina waa 3 baahina waa 12 8 kaasuu ka tegey waxay sii dhalan marka loo geeyana waa dhowr iyo 20 marka inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu jannadii firdawsa ka waraabiyo allah u naxariistay maxamed maxamuud cige ayaa ku geeriyooday xalay magaalada Hargeysa waxaana aas qaran marxuumka loogu sameeyey magaalada Hargeysa waxaana uu ifka kaga tegay marxuumku 3 iyo 18 carruur oo uu dhalay Khadar Maxamed Cakulle VOA Hargeysa dalkan Mareykanka weli waxaa kor u sii socda tirada dadka uu ku dhacayo xanuunka COVID-19 waxaana khubarada caafimaadku ay ka digayaan dadka laga yaabo inay isugu soo baxaan xafladaha maalinta xurriyadda Mareykanka ee 4 Julaay haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xanuunkan dunidan saameeyey waxaa inala socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa jimcaha maanta ku wajahan gobolka South Dakota ee waddankan Mareykanka si uu weyneeyo dabaaldegga maalinta xurriyadda oo la soo hormariyay taasoo ay ka soo qayb galayaan kumanaan qof Mareykanka ayaa hogaaminaya tirada dadka uu ku dhacay xanuunka COVID-19 ee dunida waxaanay mas'uuliyiinta maxalliga ah ee gobolkaasi sheegeen in aanay jirin qorshayaal lagu hirgelinayo inay dadku kala durkaan amaba ay xidhaan afdabool ama maaska marka ay xafladda ka qayb galayaan hase yeeshee waxay afka ku dabooshaan oo lacag la'aana la siin doono kuwa iyagu iskooda u doonaya inay gashadaan Christine Noem oo ah gudoomiyaha gobolkan South Dakota oo isagu ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa toddobaadkan horraantiisii mar uu waramayay telefishinka Fox sheegay inay u sheegeen dadka waxuun isku dareensan inay guryahooga joogaan Jaridda The Washington Post ayaa iyaduna ku warantay in safar uu madaxweyne ku-xigeenka Mareykanku Mike Pence uu ku tegi lahaa gobolka Arizona dib loo dhigay kadib markii mid ka mid ah ilaalada gaarka ah oo diyaarinta kulankan qayb ka ahaa uu xanuunsaday islamarkaana lagu arkay calaamadaha fayraska Mareykanka ayaa maalintii Khamiistii xanuunka laga helay in ka badan 50,000 oo qof kuwaasoo kala badha dadkaasi laga helay 4 gobol ee kala ah Arizona, California, Texas iyo weliba Florida kororka tirada xanuunka COVID-19 ayaa loo tirinayaa inay qayb ka tahay sida uu sheegay Phil Murphy oo ah gudoomiyaha gobolka New Jersey habdhaqan aan fiicnayn taasoo ah inaan dadku xidhanayn afdabool ama maas isla markaana aanay kala durkayn guud ahaanba dunida ayaa xanuunka COVID-19 laga helay ku dhowaada 11 milyan oo qof halka Mareykankuna uu sii cagacagaynaya 3 milyan oo qof mas-uuliyiinta dalka Australia ayaa sheegay in 10,000 oo qof oo ku nool gobolka Victoria dalkaasi ay diideen in xanuunka laga baadho toddobaadkii hore kuwaasoo ku dooday inay aaminsan yihiin in xanuunku aanu jirin amaba la dhoobdhoobay jaridda The New York Times ayaa ku waramaysa in dalkaasi Australia oo markii hore ku guulaystay inay xakameeyaan xanuunka ay hadda xayiraada ku soo rogayaan gobolkan oo ay ku nool yihiin ilaa 300,000 oo kun oo qof kuwaasoo qayb badan oo ka mid ah ay yihiin bulshada halkaasi u soo haajirtay dalka India ayaa isaguna soo tabiyay jimcahan maanta ku dhowaada 21,000 oo qof oo laga helay xanuunka iyadoo sidoo kalena maalintii Khamiistii ee shalay ay ku soo warameen inay muddo 4 maalmood gudahooda ay ku diiwaan galiyeen ilaa 100,000 oo qof
jaamacadda Johns Hopkins ee dalkan Maraykanka ayaa iyaduna maanta sheegtay in dalkan ku yaala koonfur bari qaaradda Asia waa waddanka India xanuunka COVID-19 laga helay in ka badan 625,000 oo qof. dalka koonfur Afrika ayaa isaguna maalintii Khamiistii soo tabiyay inay muddo 24 saacadood xanuunka ka heleen ilaa 8,100 qof oo cusub. dhinaca waddanka Poland ayaa ra'iisul wasaaraha dalkaasi Mateusz Morawiecki oo dadka codbixiyayaasha u sheegay inaanay ka cabsan inay soo baxaan isla markaana ay codkooda dhiibtaan wareegga labaad ee doorashada madaxweynenimo ee dalkaasi oo dhacaysa 12 bishan Julaay. xilli waddankaasi kumanaan qof oo cusub laga helaya xanuunka maalin kasta ayaa dalkan la sheegay in si aan lugu adag ku taagnayn ugu guulaystay inuu xakameeyo xanuunkan iyadoo guud ahaan ay u dhinteen ilaa 1,500 oo qof. ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa isaguna maalintii Khamiistii sheegay inuu dabcinayo karantiimeynta qasabka ahayd ee lagu sameynayay dadka soo galaya dalkaasi Britain, isagoo intaasina sii raaciyay in arrintan uu faahfaahin doono Jimcaha amaba Sabtida. ugu dambeyntiina dalka Mexico ayaa shirkadan magaceeda la xusin ay bilowday inay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn cusbitaalada ugu qaybiso afdabool ama mask iyo weliba galoofyada gacmaha la gashada iyo agab kale oo caafimaad kadib markii dhakhaatiirta kalkaaliyaasha iyo weliba howlwadeennada kale caafimaadku ay guud ahaan dalkaasi ka bilaabeen soo baxyo ay kaga cabanayaan waxay ugu yeedheen agabka howlwadeennada caafimaadku marka ay shaqaynayaan xidhaan si ay isu ilaaliyaan oo gabaabsiya. kaasi waxa uu ahaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac warbixintaasina la socodsiinayay. dhegeystayaal sida laga yaabo in intiina badan aada maqasheen laga soo bilaabo maalintii Axadda ee bisha Juun ay ahayd 28 laanta af Soomaaliga ee VOA waxa ay usbuuca xurriyadda Soomaalida u hibaysay barnaamijyo taxane ah oo 5 maalmood soo socday. barnaamijyadaasi waxaa si tafatiran ay uga hadlayeen wixii la soo maray 60 sano. 60 sano kadib xagee looga tallaabi karaa wixii la soo maray maxaase Soomaalida la gudboon. maadaama dunida inteeda badan in ku dhow 70% shacabka Soomaaliyeed ay yihiin dhalinyaro, waxaan fursad siinaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku teedsan gobolka Geeska Afrika si ay fikir uga dhiibtaan nooca Soomaaliya ay rabaan inay arkaan mustaqbalka. ku soo dhawaada barnaamijkan oo ay soo jeedinayso Zaare Ciidla Nuur. kulanti wacan dhagaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo maanta ka duwan sidii aad hore uga barateen oo aanu ku soo gunaanadayno barnaamijyadii taxanaha ahaa ee maalmahan inoo socday. intiinii dhagaystay qaybihii kala duwanaa ee 5 maalmood ee lasoo dhaafay aynu kaga boganay taariikhda dheer ee ka soo wareegtay dhulka Soomaalidu sidii uu ahaa gumaystaha ka hor xilligii halganka gobonimo doonka iyo 1960kii markii ay xornimada qaateen labadii gobol ee Soomaaliyeed ee ugu horeeyay ee 1 bishii Julaay 1960kiina isku darsaday dawladnimada. waxa kale oo aynu soo maqalnay maraaxilkii kala duwanaa ee 60 sanadood ay soo martay dawladnimada Soomaaliya. toddobaadkana barnaamijkeena faaqidaada waxaynu fursad siinaynaa dhagaystayaasha kala duwan ee VOA oo aragtiyahooda ku aadan xaalka Soomaaliya ee haatan lagu jiro iyo sida ay u arkaan xalka. waxa aan barnaamijka ka maqnayn aqoon-yahan iyo khubaro kala duwan oo qaarkood aad ku soo maqasheen barnaamijyadii taxanaha ahaa ee aynu maalmihii lasoo dhaafay dhagaysanay kuwana ay haatan inagu cusub yihiin. ugu horeyn aan u baaqo suxufiga weyn Siciid Faarax Yare oo muddo dheer ka tirsanaa idaacadda raadiyo Muqdisho haatanna ku sugan magaalada Boosaaso. wuxuu Siciid inoo soo koobayaa oo sawir kooban ka bixinaya 60kii sano ee dawladnimada Soomaalida iyo xaalku sida uu ahaa iyo waliba sida uu isagu xalka u arko. anigu wadan koobo waxaan oran lahaa inay ahaayeen dawlado urdina oo dimuqraadi ah ilaa xad. dawladii militarigu waxay ahayd cadowga xorriyadda hadalka dadka Soomaaliyeed. dawlad militari oo 22 sano dalka ku maamuleysay xukun keli talisa waxayna duudsiday adeegsiga diinta iyo dhaqanka oo ay Soomaalidu qarniyo ku soo noolayd ayna aad u qadariso. hadal kooban waxaan oran lahaa waxaan ku qiimeyn lahaa inay halaag iyo masiibo burbur dhaceen.
ay keeneen aqoon darro bulsho shisheeyana uusan ka maqnayn waxayna ila tahay in xalku ku jiro midnimo iyo wadajirka ummad Soomaaliyeed oo la helo waa dhici kartaa in ay dawlad dhexe mar kale soo laabato haddii alla idmo. haatan aan soo dhaweeyo Cabdilaahi Aadan Kongo oo aan uga mahad celinayno inuu naga aqbalay ka qaybgalka barnaamijyada taxanaha isagoo ahaa qofka kaliya ee joogay xilligii gobonnimo doonka ee ay noo suurto gashay inaanu soo helno maanta aynu weydiino aragtidiisa iyo talada uu soo jeedinayo dadweynaha Soomaaliyeed. Cabdilaahi wuxuu ku sugan yahay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta. waxa la kala tagay halkii hore lagu noqday walaaladii reer koonfur waxaan oran lahaa ninkii shalay hog maska qaniinay hawlgaraan ku soo noqon maayee dadkan doonaysaan inay iyagoo tii hore mid ka xun ay idinku yimaadaan idinku iman maayaane hal la fikro sidii si wanaagsan iyadoo caqligu degan yahay oo la is ixtiraamayo oo sharaf la is siinayo si wanaagsan ha loo wada hadlo hal la is qadariyo waxaynu doonayno mustaqbalka haddaynu u gogol dhigi karaynaa ixtiraam sameeya is ixtiraama wada hadla meel wanaagsan oo mustaqbalka Soomaali gogol loo xaari karo u dhiga reer waqooyiguna ha iska daayo jibadan waalan ee ummadi haddii ay mabda leedahay mabdaeeda way ku adkaysataa reer habeen maxaa wasiir loo siin waayey iyo reer cawaale maxaa looga tegay iyo caynkaasa iyo ose waxaan u dhacdeen qolada kalena ha ogaadeen qadarkay waqooyi leeyihiin. haatan aanu baaqo abwaan Cismaan Guure oo ku sugan magaalada Muqdisho abwaanku bahda dhaqanka suugaanta iyo saxaafadaba uu ka tirsan yahay aragtidiisa aynu dhageysano. waxaan salaamayaa marka koowaad bahda VOA iyo soo saaraha barnaamijkan Sahra Ciidle waxaan idin leeyahay haddii alla ku raayo hawl aad u wanaagsan ayaad qabateen waxaan aaminsanahay inaan taariikhda Soomaalida waxuun ka aqaan hase yeeshee wax badan oo aanan ogeyn ayaan ka bartay marka waa ku mahadsantihiin howshaas waxaa la yidhi taariikhdu dadkay bartaa waxay doraad mareen marka qof kasta oo damiir leh ama wax garta oo dhegaystay haddii alla ku roon yahay barnaamijyada wax badan ayay ka bedelaysaa maskaxdiisa iyo garashadiisa meeshii laga yimid iyo waxa la soo marayna waa uu ka baran karaa waxaana la yidhi ummaddu meeshay ka timid haddaysa garan meeshay u socotana ma ogaato marka waxaan ku tali lahay in wixii la soo maray waana waa ku filan yihiin horta lagu waana qaato qaran dumay qalfooftiis intaan hoos qadoodnaa qayrkeenna dhaafe qalad laguma saxo qalad dadkana kii qab weyn iyo umaqabaha quursada isma qaadi karaan ummaddu haddii alla ku roon yahay dhibaato intay soo martay ayaa ugu filan marka waxaan ku tali lahay bal in Soomaalidu ay maskaxdeeda haddii alla ku roon yahay ay dib ugu noqoto oo wixii horay uga qaldamay haddii alla ku roon ay saxarto haddii aada waalayn waana kuuma laabnee wakhtigii ku dhaafiyo wax ku qaado waayaha waa mahadsantihiin. sidii dhegaystayaal aan horeba idinku soo sheegnay dhalinyarada iyo dadweynaha kala duwan ayaanu barnaamijkan fursad u siinaynaa haatan aynu u baaqno qaar ka mida dhegaystayaasha VOA. magacaygu waa Dr. Mukhtaar Maxamed Cali waxaan joogaa magaalada Muqdisho wallahi waxa weeye waa su'aal aad iyo aad u weyn weeyo muhiim ah gaar ayuu taariikh igu lahaa 91dii cali mahdiya lagu dhawaaqay cali mahdina wixii dhacwaa la ogaa in magaalada xamar ay noqotay maaragtay laba garab inay noqotay ummadda inay ku baabaaday 4 bilood dagaalku inuu socday magaalada Muqdisho in la kala qaybiyay oo waqooyi iyo koonfur United Nations u kala qaybiyeen 30 sano dagaal lagu jiray anigu inta magaalada Muqdisho aan joogay goobjoog ayaan ahaa xasuuqa ka dhacay wadankan cid is weydiisa male cid is dabagasho male waxna gaaja u dhinteen kuwa cudur ay u dhinteen kuwa xabad baa laysay waxaan markaa codsanayaa war Soomaaliya maaragtay dhalinyarada Soomaali jiilka soo kacaya jiilkii hore kaasi waaba tagay inta soo kacaysa ama inta maanta dhalinyarada in la badbaadiyo inay maaragtay qarannimadii Soomaaliya Soomaarna tagi inay helaan oo markay dibadaha tagaan safaaradooda ay ku taalo oo maaragtay sharafkooda ay yeeshaan ayaan maaragtay anigu soo jeedinaya in lagu dadaalo waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed in dadka inta ka harta la caymiyo. aniga magacayga waxa la yiraahdaa Asiil Ibrahim Digaale waxaan joogaa magaalada Muqdisho markaas 60 sano ka bacdi waxa la rabaa waxaan jeclahay aniga rayigayga waxaan jeclahay oo igu borogaraamsan Soomaalidii hore oo ka sii fiican inay noqoto oo isku duuban oo walaalo ah oo wada fiican
oo wada jir la wada maro wada fiican oo wada jir in la wada maro oo karaamadii iyo sharaftii iyo cisigii wanaagii iyo walaalnimadii macaaneed aan soo celino dhibaato dambana aan ilaahay nagu soo celin bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa madiine maxamuud waxaan joogaa magaalada muqdisho intii soomaaliya qof kastaba ay madaxweyne gooni u tahay oo meel taagan tahay u maleymaa soomaaliya inay natiijo yeelanayso aniga waxaa ila gudbay inay soomaaliya halgeed isugu timaado miiska wada hadalka isugu yimaadiin oo waxaan ku leeyahay boorta 5ka iyo waxaa la sheegaa la iska daayo oo soomaaliya hogaami kara yaa cadaalad noqon kara la isugu yimaado. Assalaamu calaykum waa guuleedyare oo kasoo hadlaya magaalada Kismaayo maanta waa maalin muhiim ah dhammaan bulshada Soomaaliyeed ay muhiim u tahay anigu ka guuleed ahaan waxaan dhashay burburkii 1990kii waana xilligii dowladda ay burburtay waxay igu darnayd maalinkii macalinkayga iskuulka uu weydiiyey waxyaabihii ugu yaabka badnaa dunida intaan noolaa wax markiiba iga guuxayay ayaan la soo booday oo ahaa inaanan wax dowladda aragtan iyo saa u dhashay runtiina wax aada igu weyn bay ahayd dowladnimada tan iyo waagaas ilaa hadda waxaan jeclahay midnimada Soomaaliyeed in aad loo adkeeyo dhammaan Soomaaliya weynna isu timaado shanta qayb oo Soomaaliyeed anigoo ah Abshir Daahir Cabdi kula koray magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose kana mid ah dhalinyaradii nasiibka aan u yeelan wadankooda dowlad ah inay ku barbaaraan ku hana qaadaan ayadoo ay Soomaaliya ay burbur iyo qarax aan la kulannay aan waxbarasho heer dugsi hoose dhexe sare aan ku soo qaadanay haddana Soomaaliya waxaan rajaynayaa oo maanta aan ku haminayaa Soomaaliya oo awood leh inaan arko. bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdil maxamed ibraahim xaabsade oo jooga magaalada baydhabo maadaama hadda 60 sano aan waqti aan soo marnay oo wadankeena qarankeena uu jiro maanta waa dhibaato badan oo dhalinyarada haysato oo wadankii burbur badan iyo dhibaatooyin badan iyo laga soo maray waa inaan ka fikirnaa dhalinyaro ahaan mustaqbalkeena damba dadka u istaagi karo oo wadankan wax ka bedeli karo oo meel fiican gaarsiin kara waa dhalinyarada inay doorkooda qaataan dhalinyarada inay fikirkii hore aan fikir wax ka bedelno oon maanta aan dhahno maxaa noo dan ah Soomaaliyeed. bismillahi raxmaan raxiim anigoo ah magacayga Luul Axmed Galow oo joogto dowlad goboleed koonfur galbeed qaasatan magaalada Baydhabo marka ugu horeysa waxaan u hambalyeeynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan sanad guuridii 60aad oo ka soo wareegatay maalinta Soomaaliya xornimada ay heshay 30 sano ugu dambeeyay Soomaaliya waxay ku jirtay khalalaasyo iyo dagaalo ka jiray Soomaaliya meesha ka faa'iideysan dhalinyarada joogta waxaan rabnaa 30 sano oo la soo dhaafay si fursadihii noogu lumeen hadda kadib inaysan noogu lumin aan ka faa'iideysano inta hadda mustaqbalka soo socdo ee noqoto mustaqbal ifaayo aan la jaan qaadano wadamaha caalamka anigan aan u naqano dhalinyaradeena si aan ula jaan qaadi karna adduunka. magacayga Salaado Maxamed Cali waaye waxaan ka soo barakacay dalka Yemen waxaan ku ceeshay muddo 20 sano ah hadda waxaan joogaa 3 sano ciyaalkii waxbarasho male aniga shaqo la'aan adoogina maalin waayo nolosha waxaan hadda jecelnahay in ciyaalkii waxbarasho noo helaan anigana aan shaqo helno. magacayga waa Xabiibo Luqmaan Cali waxaan kasoo barakacay Baydhabo waxaan jeclaan lahaa inaan amni fiican helno iyo waxbarasho fiican iyo caafimaad inaan helno codsanahay waan jeclaan lahaa inaan nolosha barakaca kasii baxo inaan waxbarasho fiican helo oo wax barto oo heer gaaraan jeclaan lahaa. magacayga waa Yuusuf Xaaji Ismaan Birtule waxaan kasoo baxay degmada Qaryooley aabbahay mar hore ayaa dhintay hooyadeyna 2 ciyaal ayaa haysato aniga maanta dhowey waxa ugu soo qabo waayey hamara amaaday waxaan rabaa inaan aniga wax barto degmada waxaan ku codsanayaa dowladda inaan aniga wax barto waxaan ka barto iskuul iyo dugsi intaba aniga jaamacadda wax walba inaan ka dhameeyo hadda waxaan rabaa aniga ilmaheena lagu waayo hooyadeena inaa ii sheekadee waa masaakiin wax haysto ma jirto. anoo magacayga Cali Ismaan Geelle kasoo barakacay Shabeellada Hoos gaar ahaan Jannaale waxaan jeclaan lahay Soomaali inay madowdo oo nabad hesho oo diinta islaamka oo xaqa ah fahanto ilaahay fahansiiyo ka bacdana nolosheena nolol oo islaamka nabadgelye sunnada rasuulka iyo daacada ilaahay noo hogaansho inaan shaqo helo hoogayga ku shaqaysto oo nabad helo oo meel degan helo
oo gobolladii aan ka imid nabadgelyo ilaahay u yeela. magacayga waa yaasmiin cumar cali, waxaan ka soo barakacay degmada beledweyne anigoo oo jecel in aan ku noolaado Soomaaliya. waxaan u baahanahay caruurteyda iyo ilmahaygaba inaan waxbarasho annaga kulligeen wada helno, si caafimaad aan ugu noolaano, nabadgelyo fiican ilaahay inuuna siiyo. magacaygan waxaa la dhahaa cabdinaasir xuseen dhoore, kaasoo ku nool qaxootiga Kenya ee gaar ahaan Dadaab Complex muddo dhan 30 sano oo u malaysid micnaha qayb ka mid ah nolosha anaga inta ugu muhiimsaneed aanu ku soo qaadanay nolol aad u cariiri u ah taasoo keeni karto qalbi jab, murugo, boholyow iyo rafaad innaba aan la soo koobi karin. iyo waxaa kaloon aad ugu faraxsanahay maanta haddana aan jaanis ku helay dowladda Soomaaliya maalintii ay qaadatay gobonimada oo maanta iyo farxad ah oon weliba ka soo tabinaya ama VOA-da. alxamdulillahi rabbil caalamiin, waxaan aad ugu faraxsanahay maadaama aan Soomaali ugu dhashay, laakiin aanan arkin boholyowna aan u qabo. aadna aan u jeclaan lahaa inaan waddankaygii nabad ah anigoo nabad ah aan ku laabto. laakiin mararka qaarkood waxaad ila muuqataa micnaha dadkii madaxda ay ahaa ama madaxda waddanka u ahaa ee na tusi lahaa wadannimada ama na tusi lahaa jidka dhabta ah oo loo baahnaa inayna horgaamiyaan dhanka fiican iyo had iyo jeer noo hogaamiyaan loo baahnaa. aad u malaysid kastoo sidii la rabay inaysan waxba ay u dhacaynin. taasna aad ayaan uga xunnahay ama aan uga niyadjabnaa. waayahay bal cabdinaasir tix baad ii sheegtay inaad nolosha adag ee qaxootiga ka diyaarisay, tadaasi maxay tahay? tixdani sidan ayay u dhacaysaa. bismillahi raxmaani raxiim. haddii ay abaar kugu dhacdo dheeftu kaa guurto, dhaankuba waxaa loo raraa dhoodi roob helaye, dhibicdiyo halkii roob leh baa lagu dhawaadaaye, aniguna dharaarahan dalkii way igu dhex aalaaye, dhibaatiyo waxaan soo marnay dhafar mahiigaan ah, qaxootiyo dhambaalkii ka yimid dhagaha loo taage, soomaalay gacalkaydiyey gacmaha isu dhiiba. dhambaalkaas ayaan diyaariyey, micnaha la qaybsanaya walaalahayga Soomaaliyeed meel kastaba ha joogaane. aan aad ugu faraxsanahay maalinta ay qaadatay xornimada Soomaaliyeed. wallaahi waxaan markii aan maqlo Soomaali sidan ay tahay iyo sidan ay tahay, mararka qaarkood waxaan doorbidayaa micnaha inaan isma rajiyo, taasoo ay ugu kalifayso duruufo micnaha meeshan ka rajo qab inaan u laabto oonu u waxbarte ay ahayd dalkaygii. maantana boholyow aan u qabo si aanan tegi karin duruufo amni dartooda, taasoo micnaheeda aan leeyahay duruufo amni markaan leeyahay haddee ninkii madaxda ahaa iyo hogaamin lahaa markii dhinac bositifeka u fikiraynin, aniga micnaha qalbijab iyo nijab ay ugu dhacayaan. waa tahay dowlad sidee ah ayaad jeceshahay mustaqbalka dhow inay Soomaaliya ka hana qaado, maadaama jiil fara badan muddo 30 sano ah ay ka luntay fursad qaali ah? wallaahi alxamdulilah rabbil aalamiin, su'aal aad muhiim ah weydiisay, su'aal aad qaalad weydiisay. waxaan jeclahay dowladda in ay ka hana qaada, aan jeclahay dowladda aan ka rajo qab inay inay Soomaaliya qabataa waxay tahay si isu yeelato. ma rabo nin siyaasi ah, waxaan rabaa nin muwaadin ah. siyaasi waxba ima taraayo, waayo nin siyaasi markuu ku leeyahay waa nin jeebkiisa wixii faa'iido ku shubanayo. waxaan rabaa nin muwaadin ah og dhibka dalka yaalo iyo dheefta waddanka taalo iyo si loo maamuli lahaa iyo dadka maamuli lahaa inaan annaga nahay oo mustaqbalka jiilka waddanku soo kacaayo iyo meeshaan ku nool nahay oo meel aan loo qalma lahayn. magacayga waa Mudi Cabdullaahi Faarax, ku sugan xeryaha qaxootigan ee Dadaab. waxaan u hambalyaynayaa ummadda Soomaaliyeed 60 guuradii sanadkii 60 guuradii ka soo wareegatay xorriyadda, taasoo hadda 30 sano naqax aan ku jirnay. anigu waxaan ahaa caruurtii yareed ayagoo 7 jir ah dalka Kenya loola soo qaxay ayagoo gacanta la wado. waddankan ayaan waxbarasho ka bilaabay, heer waxaan nolol kastaba soo marabo. alxamdulilah waxbarashadeedii markii dambe waan ku guulaystay, waan dhammaystay. waxaan ka shaqeeyaa hadda, waxaan ahay nin hay-adaha samafalka xarooyinka Dadaab ka shaqeeyo. waxaan ahay aabba 4 caruur haysto. waa tahay maxamuudow, maxay kula tahay
inay sameeyaan siyaasiyiinta iyo waxgaradka Soomaaliyeed si waqti kale oo san ugu lumin jiilka yaryar ee Soomaalida ah oo dalkoodii oo nabad ku gaaro? wallaahi waxaan dhihi lahaa arinta ayada siyaasiyiinta Soomaaliyeed waxa la gudboon inay dad ay noqdaan isfahmo, dad ay noqdaan isu tanaasul muujiyo, waa inay noqdaan dad magaranaysaa badbaadin karo ummadda Soomaaliyeed inta ka hartay intii badaha iyo saxaraha iyo qaxooti ku burburtay qurba intii kale ee dalka gudaha ku barakacsan waa inay dad ay noqdaan arxan leh oo dadkooda u turo sababtoo ah markaad fiiriso caruurta Soomaaliyeed maanta waxay noqdeen caruuraha ugu magaranaysaa mustaqbal xun caruuraha caalamka inta kale markaad fiiriso wax misfortune la yiraahdo ku dhacay yani wax nasiib darro ku dhacday markan waa inay muujiyaan alla ka cabsi isu tanaasulitaan isfahansanaan si ay u badbaadiyaan jiilkan soo socdo iyo jiilkiisa kale sababtoo wuxuu jiilkan shaqeeyo iyo jiilka kale yaa wax u taraa anigu hadda kula hadlaayo already noloshayda qaxooti baan ku qaatay 40 jir baan hadda aan gelihayaa markan waxaan u dagaalayaan u leeyahay caruurtii aan dhalay mustaqbalkooda yaa in laga shaqeeyo caruuraha Soomaaliyeedna waa sidaas oo kale waa inaan mustaqbalkooda laga shaqeeyo si ay ula mid noqdaan caruuraha adduunka maanta ku nool inay si ay ula mustaqbal noqdaan waa in caruurta Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed dhan waa in ay dad badbaadin kara ay noqdaan xaaladan kala guurka waa tahay in jiilka qaxootiga ku nool oo kumanaan gaarayo in baahida ay ugu qabaan dalkooda hooyo in herkab u gaarsiisan yahay boqolkiiba boqol buu gaarsiisan yahay waayo qaxooti way meeshan ku yihiin waa xabsi kor ka fiidin dalkii Kenya ma dhaxgeli karaan sharci baa la weydiinaya waa la xirayaa waa la dhibayaa ma garanaysaa shaqooyinkiina dhaqaale fiican maanta ay ku haystaan male kii wax bartay kii kale boqolkiiba boqol dalkooda oo dawlad u noqday ay boqolkiiba boqol ay aad iyo aad ma garanaysaa loogu haminaya ay ugu kalsoon yihiin si dalkii ay ugu laabtaan mustaqbalna ay ugu mustaqbalkoodana ay ku dhisaan ummadda Soomaaliyeedna si ay uga qayb qaataan tawaruceeda iyo mustaqbalkeeda jiilka soo socda. waad maasanta walaalkayga qaaliga ah magacayga waxaa la dhahaa Xuseen Maxamed Ibraahim waxaan ku noolahay xarooyinka qaxootiga Dadaab waxaan ahay dadkii ka soo qaxay Soomaaliya waxaan ku dhashay Soomaaliya 1989 bishii koowaad waxaan imaanay xarooyinka qaxootiga 1991 bishii afraad waxaana joognaa hadda ugu yaraan 30 sano meeshaas aan joogno oo xarooyinka qaxootiga Dadaab waxaan ku dhameeyay dugsigii hoose iyo dugsigii sare haddana waxaan rajaynayaa inaan jaamacadda ku biiro haddana waxaan ahay qof shakhsi ah oo ka shaqeeyo hay'adda MSF. waayahay Xuseen waxaad ii sawirtaa jiilka halkan ku nool ee waxbartay sidee yihiin iyo qaabka ay dalkooda u anfici karaan. waad mahadsantahay walaal sidaad u ogtahayba dhalinyaro fara badan ayaa jirta oo ka wax baratay xarooyinka qaxootiga Dadaab sidaad u ogtahay walaal injineerkii makaanigii dhakhtarkii naaskii koosas badan ay soo dhameeyeen halkaana ay ku haystaan shahaadooyin heerkooda uu sareeyo shahaadada jaamacadda qaarkood ay sameeyeenba master aan ognahay oo kuwii dalka anfici lahaa oo kuwii dalka wax u qaban lahaa oo kuwii dalka uu ku xisaabtamayo maanta la joogo. waayahay maxay kula tahay in siyaasiyiinta iyo waxgaradka ay sameeyaan si waqti kale oosan ugu lumin jiilkan Soomaaliyeed ee waqtiga dheer nolosha qaxootinimada ku noolaa? walaal waad mahadsan tahay siyaasiyiinta waxaan ku wacyigelinaynaa annaga dalkii waan u soo soconnaa oo baahi baa noo haysaa siyaasiyiinta inay tanaasul ay sameeyaan ay isfahmaan ay isku dadaalaan ay mar walbana ay gacanta isqabsadaan tanaasulna ay sameeyaan ayaan u baaqaynaa haddaan nahay dhalinyarada ku nool xarooyinka qaxootiga Dadaab. waayahay dowlad ceenkee ah ayaad jeceshahay dalkii inaad ka hana qaado? dowlad oo hagaagsan cadaalad ah hufan oo maamulkeedana uu yahay maamul sareeyo oo wanaagsan oo hufan
oo cadaalad ah inay ka dhacdo Soomaaliya soomaaliyana ay isku keento ay noqoto tii Soomaaliya horumarkeedii iyo barbaarkeedii iyo wanaageedii ay wanaagsanaan lahayd magacaygu waa Siyaad Orsalaad waxaan ku noolahay xirinka qaxootiga Dadaab aad iyo aad ugu faraxsanahay xornimada Soomaaliya inkasta aan Soomaali aan arkin waxaan ku dhashay oo hooyaya xirinka qaxootiga Dadaab maxaa yeelay dalkayga Soomaaliya ma arkin aad iyo aad ugu faraxsanahay waxaana jeclaan lahaa wadankayga Soomaaliya oo nabad ah in aan arko waayahay siyaasiyiinta iyo hogaamiyaasha Soomaalida maxaa jeclaan lahayd inay sameeyaan maadaama waqti dheer jiil Soomaaliyeed oo ka lumay oo wadankii colaadii dhibaatooyin ay ka jiraan 30 sano mabur lagu jiray waxaan ugu sheegayaa siyaasiyiinta Soomaaliya iska qabsada inay joojiyaan maxaa yeelay ciyaal fara badan mise dhalinyaro fara badan oo ku nool qurbaha mise qaxootiyada ayaa ku dhawaadsan waxayna jecel yihiin wadankooda oo hal mar oo nabad ah maxaa yeelay nin kasta uu jecel yahay wadankiisa inuu nabad u noqdo si aad mustaqbalka inaan dalka Soomaaliya aad madashaa aad iyo aad aan u faraxsanahay markastana waan riyoonkayga u koowaad waa inaan dalkayga Soomaaliya aan ku noqdo oo aan arko wadankayga oo nabad ah maxaa yeelay wadankayga aad aan u jeclahay markastana waan jeclahay nabadiisa iyo horumarkiisa ayaan aad iyo aad aan u jeclahay magacaygu waa Anwar Maxamuud Xaj Khaliif ku nool gobolka Sool gaar ahaan magaalada Sacaanood kamid dhalinyarada Soomaaliyeed marka koowaad waxaan u mahadnaqayaa VOA barnaamijka 60 guurada ay wado waad ogtihiin 60 sano ka soo wareegtay markeen xornimada qaadanay annaga dhalinyar ahaan 60 ka sano intii aanu jirnay dawlad iyo dabaaldeg iyo farxadda wadamada caalamku ay dhalinyaradu qaataan maanu arag sida awgeed waxaan maaragtay ummadda Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta iyo maaragtay madaxda Soomaaliyeed aan u soo jeedinayaa waqti dambe inaysan naga lumin wax aanu dadka nala ayniga ah ee adduunka ah aanu maaragtay aanu la simanahay xaqooda aanu helno oo ah in dalka la mideeyo ummadda Soomaaliyeed la mideeyo in dhalinyarada la siiyo fursad oo haddii 30 sano u dambeeyay dagaal lagu waday 30 soo socda dhalinyarada la siiyo fursad ah inay maaragtay midnimada iyo barwaaqada iyo horumarka ka shaqeeyaan si gaar ah waxaan la hadlayaa oo maanta siyaasiyiinta Soomaaliyeed dhammaantood meel walba ay joogaan waxaan leeyahay idinku waad soo qaadateen fursaddiinii baaldegyo waad soo samayseen dawladdu waad soo aragteen waxaan leeyahay fursadna siiya si aan dawladdu u aragno bismillah magacaygu waa Cabdiraxmaan Jacdaad waxaan joogaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaan uga mahadcelinayaa VOA barnaamijkan dib u soo nooleynta ama xuska 26 Juun ee ka sameynaysa barnaamijka 60 sano guurada haddii aan ra'yi ahaan ka dhiibto bal doorka la gudboon odayaasha iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo kan dhalinyaradaba ama isbarbardhig ku sameeyo waxaan odhan lahaa odayaasha iyo siyaasiga Soomaaliyeed ee maanta jooga waxaa la gudboon inay chance siiyaan dhalinyarada Soomaaliyeed maadaama iyagu ay la odhan karo muddo 60 sano ah bay barnaamijkan ku soo jireen xal waarana weli kamay gaadhin waa hagaag dhegaystayaal waynu ku soo noqonaynaa aragtida dadweynaha amaba dhegaystayaasheeda ku kala nool magaalooyinka Geeska Afrika balse dhinaca aqoon-yahanka aynu jaleecno waxaan u baaqayaa Professor Afyara Cabdi Cilmi oo wax ka dhiga jaamacadda Qatar balse haatan ku sugan dalka Canada wallahi arinta Soomaaliya iyo Somaliland iyo heshiiskooda iyo kala tagooda waxay ku xiran tahay waxay ayagu rabaan labada qol ay isku qanciyaan ilaa hadda kulley kala tagna laguma heshiin midnimana laguma heshiin laakiin haddii la rabo in oo labadooda mid la aado midii la aadaaba waa la samayn karaa midnimo haddii la aado oo la yidhaahdo siday ku wada noolaan karaanna dee waa intaas oo khiyaaraa jira oo 1 iyo 2 iyo 3 ma aha waxaa jira confederation waxaa jira federation waxaa jira nidaamka asaga laftarkiisu decentralized unitary system waaye sida nidaamkan ingiriiska iyo waxa iyo act waxaasaa loo sameynaya waxaa jira maxaan ku irahdaa Tanzania model waa adiga so many optionna badan oo waxaa jiro ama khiyaaro badan oo la isticmaali karo dhinaca midnimada haddii la kala tegayana dee waa arrin kale laakiin dee arrintaasi aakhirka waxay usoo noqonaysaa hadba
aragtida iyo sida ay somalilan ay madaxdeedu ay go-aano adag u qaadan karaan wakhtigan 60 sano kadib soomaalida maxaa la gudboon ama ay yani qaadan kartaa dabaaldegan oo maaragtay aan wax qoto dheer ku dhisnayn inta loo kaadsho si dhaba loo qiimeeyo wixii burburay iyo wixii hagaagay iyo wixii dhib qabyoobay oo markaana layshiifo oo layshaaraamo oo la dhaqaaqo oo la yidhaha waa inaan arrintan wax ka bedelnaa arrintaa ayada ah farfarku taagan iyo siyaasaddan oo maaragtay hawadoodu kama foga haasaasa maalmeed oo yiri yani ninka la yidhahdo raw yani nimankan siyaasiyiinta oo waxa beriya maantaba kadib aan arki karin runtii ma caqligoodu yani meel dheer dadka wax ma gaarsiinayo waxaa la rabaa inay wax yani ku dhisan qiimeyn iyo weliba de culayskii dhacay inta dib loo eego markaa kadib horey loo fiiriyo wagaag aad buu maatayay Professor Afyare Shamis Ismaaciil Xuseen waa mid ka mid ah haweenka aqoon-yahanka Soomaaliyeed waxay qortay buugaag kala duwan sidoo kalena jaamacado ayay wax ka dhigtaa waxaanay ku takhasustay daraasadaha siyaasadda haatan waxay ku sugan tahay magaalada Hargeysa waxay ka hadlaysaa saameynta ay colaadaha iyo dagaaladu ku keeneen mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed inkasta oo dagaalkii ka dhacay Soomaaliland mid ka muddo dheer oo ka foolxun oo ciidamo joogaan oo ka waqti dheer uu xamar ka dhacay xamar iyo Hargeysa waxay ku kala duwan yihiin Hargeysa taariikhda waxa ku jirta dawladeedii ummadeedii sidii ay la dagaalamayso dawlad kale oo taangiyadeedii leh oo diyaaradaheedii leh dagaal halkan ku qaaday marka horta labadaas lagu kala duwan yahay qolana inay ku celceliso waana la rusheeyada Soomaalida kaleba ka liidatana maaha qolana inay diyaaradda dafirto oo tiyaha diyaaradba halka u taalo cugdad bay qabaan maaha hanna dawladii Soomaaliya dadkeedu rusheysay marka cugdad in laga qaado ma waa daris laga baranayo ninka madax noqda wuxuu sheegaysaa xalku inuu ku jiro wadankan waa wadan qiimo badan wadan taariikh la aado badan buu leeyahay saaxiib badan male saaxiibtinimada waxay ku xirantahay marba muruqaagu halku taagan yahay hadaa doonayso taa inaad muujiso oo la helo Soomaali geeska Afrika strongana de siyaabo lagu kala badbaadi karo la isuguna iman karo horay u dhacdo marka labada arrimood bay Soomaalida marka isugu iman kartaa mar kale ayaynu dib ugu noqonaynaa aragtida dadweynaha Sakariya Maxamed Faaxaali oo kamid ah dhalinyarada gobolka Togdheer kadib 30 sano oo la kala maqnaaday oo keentay in Soomaaliland ay cilaasato dawlad madax bannaan halka gobolada koonfurtuna ay sameysteen dawlad aan la isku ogeyn oo federaal ah hadda waxaan ku talin lahaa in Soomaaliland la aqoonsado oo waliba ay noqoto Soomaaliya aqoonsato Bismillahir Rahmaanir Rahiim awalan magacaygu waa Sagal Yuusuf Ibrahim ku nool magaalada Burco horto Soomaaliland iyo Soomaaliya maanta waxay taagan yihiin waqti u baahan in ay si hufan oo codkarnimo leh oo bisayl leh inay u wada hadlaan maanta labaduba way arkeen bismillaah magacaygu waa Raxmaan Musagood ku nool caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida waxaan aaminsanahay waxyaabo ka waaweyn inay meesha yaalaan faragelin shisheeye dana gaara ama siyaasado gaara oo laga lahaa Soomaaliya inayna degin 30 sano iyaduna ay noqotay mid damman oo tasta cadawgeedii u dhiibatayba taladii waayo 30 sano dad walaala ah isku diin ah isku af ah isku luqada ismayna fahmi waayeen waxa weeyaan xasilinteeduba gacanta ugu jireen oo loo dhiibayay dawladda shisheeye magacayga waxaa la yiraahdaa Saciid Ali Salaad ama Saciid Ali Cilmi nin Soomaaliya oo Kenyaana dadkiisii sano oo la soo dhaafay Soomaaliya waxa ay soo martay waqtigii ugu adkaa malaha taariikhda Soomaalida marka la eego dadka markii ay wax soo kala soo maraan oo dhibaato noocaas ay soo dhacdo meeshii ugu xumeed mar hadaad soo gaarto waxa kaliya oo ku dhiman waxa weeyaan inaad ka soo kabato oo aad marka ka bogsato cudurradaasi waxaad dhageystayaal in hore ugu sii socono barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka inagoo mar kalena fursad siin doono dhageystayaasha haatan aanu baaqo Ibraahim Aadan Doolaal oo haatan ku sugan magaalada Jigjiga Ibraahim waa aqoon-yahan kana tirsanaan jiray saraakiisha ciidamada Soomaaliya Soomaalidu marba meel bay mareysay waxaanu ahayn dad sharfan dal sharfan dawlad sharfan ummad la yaqaano adduunka oo dhan inay xoreeyaan dawladaha South Africa Namibia Angola iyo waxa hareere Mozambique fadhiyi jiray
dowladda soomaaliyeed baan wakhtigaa masili jiray nasiib daro marka la soo gaadho wixii 1980gii ka dambeeyey soomaalida qabiil bay noqotay wax walba waa la dhex galay kaasina wuxuu sahayday ama soomaaliya hala joogo ama deegaanka soomaalida hala joogo ama dhulkan soomaaliyeed ee Kenya ka tirsan hala joogay istirka soomaalidu wuxuu garan doonaa meesha uu joogo intaynaan ka bixin fikradda indheergaradka Soomaalida iyo talooyinka ay noo soo jeedinayaan waxaan u baaqayaa Muuse Maxamed Guuleed oo ah taariikhyahan Soomaaliyeed oo ku sugan dalka Isutaga Imaaraadka Carabta midnimada Soomaaliya ma xumaan in dastuurkeena lagu qoro waana isaga qoran kartaa mana xuma midnimada Soomaaliya hadii la helo laakiin waxaysan ummadda Soomaaliya isweydiinin hadii midnimada Soomaaliya la waayo ma lagu dagaalamaya ma ku dirirayna ma isku qasbayna Soomaalidu ma wax ka sababa mase waa wax ogolaasho ah waxa aad moodaa in uu qodobkaasi waxyaabo fara badan oo macno sameynay ay ka dhiman yihiin Soomaaliland waxay ku wanaagsaneed Soomaalinimada in lagu wada barnaamij cadaalad ah oo loo wada siman yahay aan cidna caburinayn haatan mar kale ayaynu fursad siinaynaa dhageystayaasha barnaamijka la socda walaal waxa la magacayga Xuseen Badhaan waxaan joogaa magaalada Hargeysa caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland wala israacay 30 sanadood bay dawladdu u jirtay 30 sano dawladdu u jirtay wanaag iyo xumaan waxay lahayd wax laga dheehan karaa wixii ka soo baxay oo burbur maxaa dadkii oo kala tagay iyo Soomaali oo magaceedu noqday magaca ugu hooseeya 30 sano ee dambe ka dambeeyay burburkiina qolo kastaba dhankooda u tashatay ma sha Allah Somaliland 1990 taladii lagu gaaray barco ay ku gaareen dadka Somaliland oo dhan waxay gaadhay guul waan dhawahay magacaygu waa Xamdi Qadar Xuseen waxaan jeclaan lahaa inaan arko Soomaaliya oo mida sida 1960 jacaylkii walaalnimadii soo qabeen xornimada u doonayeen maantana midnimadooda ay u doonaan aan chance iyo fursad si aan u helno uga faa'iideysano si dalalka jaarka khayrkayga aan u gaadhno sababtoo ay tahay iyagu waa retired cimrigoodu way soo qaateen cimri quruxdan bay Soomaaliya ku soo qaateen anaguna waxaan jecelnahay kii kilomitir aan qaadano kuwa dhabarkayga ku jira iyo kuwa dhuuxaya ku jira dhamaantayba say chance ka iyagu helaan aan u helno Xuseen Xaaji Loole Xuseen gobolada koonfurteed ka soo jeeda gaar ahaan halkii Muqdisho gaar ahaan xaafadda Shibis hawluhu sidee u socdaan badii u malaynaysaa markaad aragto Somaliland iyo Soomaaliya dhawaan wada hadlay midowgii Soomaaliya ayaa iyadana 60 sanadood laga joogaa kulli waxaan rajaynaynaa labadoodu inay midoobaan rajaynaynaa insha Allah hal Soomaali inay wada noqdaan oo laba wadan oo walaalo oo jaar ah insha Allah sabar rajaynaynaa Maxamed Aadan Maxamed oo hagaagay imika wax hagaagay oo egta maxaad ka tagaysaa joogan arkaya in Soomaaliya ay shinayso mid noqonayso baa ay muuqata aniga bismillaah magacaygu waxa weeye Tooriyaasiin Faarax Artan waxaan joogaa magaalada Boosaaso meesha lagu heshiin karo waxa weeye dadkan Soomaalida wax ka dhaxaya ma jiraan waa dad isku diina waa dad isku luqa ah waa dad walaala ah laakiin nasiib darro waxa weeye wadankaanu politician ma u helin dad politician oo fiican ma u helin dad daacad oo isu keenayna ma u helin waxaana dhalatay in waliba gobolkiisa oo ku adkaysto si danihiisa gaar u dhamaysto waa in la helo bulsho Soomaaliyeed oo meel wada socota oo dan guud iyo dadkeeda iyo ummadeeda iyo dhalinteeda dadkeeda u danaynaya oo muxuu ahaa iska jiraya khilaafaadka tirada badan ama kuwa diimeed ama kuwa qabaa'il ama kuwa siyaasadeed magacaygu waa Bishaare Yuusuf Axmed joogta magaalada Boosaaso muxuu haysto dal walba dadka ku nool 65% waa dhalinyaradu xaq waxay u leeyihiin oo la siiyo doorka ay ku leeyihiin hogaaminta wadanka waxa kale oo taa lagu gaari karaa sinaansho iyo cadaalad taasoo muxuu haysto qofkan laga fiirinayn guriga ka soo kacay iyo reerku yahay iyadoo haddana loo fiirinay sanadkan reer hebel baa haysa sanadka dambe soo socda reer hebel baa qabsanaya taasna waxa laga gudbi karaa in maxay qofka laga fiiriyo kartida uu leeyahay aqoonta iyo maxay horumarka uu gaarsiin karo wadankaas guud ahaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka iyo barnaamijyadii taxanaha ahaa ee maalmahan bay noo socday waa nagaynta waxaan u mahad celinayaa ugu horeyn madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow kaalintii uu ka qaatay intii ay socdeen barnaamijyadan taxanaha ah iyo asxaabta VOA Washington intii gacan ka geysatay waxa kale oo aan u mahad celinayaa wariyaasha VOA ee ku kala sugan magaalooyinka Geeska Afrika guud ahaan kuwaas oo qaarkood ku maqasheen barnaamijyadii taxanaha ahaa kuwa kalena ay noo soo ururinayeen aragtida dadweynaha ee magaalooyinka ay ku sugan yihiin sidoo kale waxaan u mahad celinayaa khubradii barnaamijka ka qayb gashay iyo dadkii baaritaanka taariikhda dheer gacaniga siiyay intaa kadib waa Sahre Ciidla Nuuro idin leh sida iyo nabadgelyo
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo akhriyo cabdixakiim maxamuud sharwac. ra-iisul wasaarihii dalka faransiiska edward philip iyo xukuumaddiisii ayaa jimcahan maanta iscasilay xilli madaxweynaha dalkaasi emmanuel macron uu damacsan yahay inuu maamulkiisa dib u habeeyo si uu dib ugu hanto codbixiyayaasha oo ka niyad jabsan suurtagalnimada dibi doorashadiisa sanadka 2022. macron ayaa la tacaalaya inuu dib u qaabeeyo xukuumaddiisa xilli dalkaasi faransiisku uu ku jiro dhaqaale xumadii ugu weyneyd tan iyo dagaalkii labaad ee dunida, iyadoo uu jiro hoos u dhaca dhaqaale oo gaadhaya 11% sanadkan 2020. maalgashadayaasha ayaa dhowraya amaba isha ku haya wasiirka maaliyadda ee dalkaasi faransiiska Bruno Le Maire oo isagu ku foganaya inuu furfuro dhaqaalaha faransiiska islamarkaana uu kharash geliyo si shirkadaha Air France iyo Renault ay howlahooda u sii wataan xilligan adag ee lagu jiro. ra-iisul wasaaraha dalka India Narendra Modi ayaa sheegay in waqtigii gumaysigu soo idlaaday xilli uu booqasho lama filaana ku tagay gobolka Ladakh ee buuraleyda Himalaya, halkaas oo lagu daadagureeyay kumanaan askari oo ka tirsan ciidamada dalkaasi xilli ay xiisadi u dhaxayso India iyo Shiinaha. safarka ra-iisul wasaare Modi ayaa keliya la shaaciyey kadib markii uu halkaasi gaadhay, iyadoo socdaalkiisana loo arkayay inuu ahaa fariin ku socota dalka Shiinaha iyo weliba inuu niyadda u dhisayay kumanaanka askari ee xuduudda labada dhinac ku marasan yihiin ku hor fadhiya ciidamada Shiinaha. waxaanay booqashadiisani imanaysaa 2 toddobaad kadib markii 20 askari oo reer India ay ku dhinteen, kaasi oo ahaa isku dhicii ugu xumaa ee muddo 10 sano dhex mara labadan dal ee haysta hubka nukliyeerka. warbaahinta dowladda Turkiga ayaa ku waramaysa in qarax uu ka dhacay warshada soo saarta rashta oo ku taalla waqooyi galbeed dalkaasi. wakaalada wararka Associated Press ayaa iyaduna ku warantay in 150 ilaa 200 qof ay dhismahaasi ku sugnaayeen xilliga uu qaraxu jimcahan maanta dhacayay. ilaa iyo hadda ma jirto wax faahfaahin oo ku saabsan inay cid wax ku noqotay warshadan ku taalla gobolka Sakarya. muuqaal uu baahiyey telefishin ayaa isaguna muujinaya uuro amaba qiiqa ka dulbaxaya goobta uu qaraxu ka dhacay. markana ku soo dhawaada heestan. durdurkii markuu guray daqsintii la saansaday dabayluhu ku qaadeen igu nuqu haddaad tidhi u dulqaadan maaye ha igu daalini durdurkii markuu guray daqsintii la saansaday dabayluhu ku qaadeen igu nuqu haddaad tidhi u dulqaadan maaye ha igu daalini idaacaddeeni waa naga intaas. waxaa caawa idiin soo jeedanayay jamaal axmed cusmaan iyo anigu ibraahim xasan daandure. intaan mar kale ku mid doono sidaa iyo nabadgelyo. لأدن ما يدالع لقل ما
madahuba ama wax laysu diidaha